daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij xiiso badan oo ah barnaamij faneed aan wareysi kula yeelan doono fanaan abwaan cali dhaanto markii ugu horeysay adoo dhaanto watan ubad bulshada soo dhex istaagtay bal waxaad wax yaroo warbixin naga siisaa taariikh nololeedkaagii iyo waliba magaca dambe ee dhaanto sidii uu kugu baxay. cali dhaanto waa ninkan soo hor fadhiya laakiin dhaantadu waa naanays waa cali bashiir cabdi ku dhashay deegaanka Soomaalida xabay ka tarmayst tuultuuliye qabale moogta dhaantada ka soo bilaabay halkaas iyo ciyaaraha muddo badan ku soo jiray oo eega gaaraysa 12 ilaa 13 sano. waxaad tahay abwaan oo mu'allif ah hadana waxaad tahay fanaan ku luuqeeya ciyaarta dhaantada si guud fanku uu fara badan yahay adigu qaybeed ka qayb gashaa fanka. Ibrahimo هو سؤال في أنا هرت النبض وحبه كتل معي مركز هذا ما عيجا وكسنتين كل واحد ملينا يا عيارة دانتدا أما دقنك هدي اللي هذا دقنك وشيء فرق بديه سبيشال لكن دانتدا عيارة دانتدا بان ملينا كجقبات Alanto adigoo maasan ciyaarta dhaantada markeen u soo noqono waxay kamid tahay ciyaaraha sida weyn looga yaqaano geeyiga Soomaalida iyo waliba guud ahaan Soomaalidu meel walba ay degan tahay adigu iskuul meel gashay markii ugu horeysay ciyaarta especially gobolada ka midba ilaa ay gaabar sida dhaantada laga tumayo dhaantadu waa iska dhaqanka caadiga ah ciyaarihi caadiga ah dhaqanku lahayd dadku ummadda Soomaaliyeed lahayd weeyaan wali kamid tahay magaalooyinku ugu weyn baa laga tumaaba oo sida caadiyan ayadoon magaalo ahayn baadiyi kaliya ayadoon ahayn aroosyada yaafida laga tuun jiray marka hadda koor baa wanaaday hadaan moodiyo shaqadaydu inay sida noqon doonto dhaantadan aan sida ku noqon doonaa ay raaci doonto waagan yaraaba sida si ka balaysan oo si baran laabash marka wax bayadan ku noolaa ka jirtay bay ayadoo soo jirtay markii dambana ilaahay amarkii waa uu isqadar rabiye anoo dhax bartankeeda taagan baan arkay deegaan fiican ayaad ka sheekeysay oo lagu dhex baran karo ciyaarta hidaha iyo dhaqanka ee dhaantada si guud deegaankaasi waqtiyo gooni ayaa looga ciyaari jiray waqtiga aad ku sugnayd halkaasi ciyaarta dhaantada mise waxaa jira waqtiyo u gaar ah oo dadku bulshadu deegaankaasi dega ay u soo banbaxaan inay ciyaartaasi ciyaaraan. ma yeeseedaba horta dhaqanka ciyaaraha dhaantada inta badan lama bay kuma jiraan xiliyada doogaadi ee maaragtay dadku farxad inay u keento ama inay colaadi u keento colaadana dhaqanka ciyaaraha dhaantada ama dhaqanka iyo waa la isugu hanjabi jiray waa la isugu geebi jiray oo colaadaha way ku muujin jireen Soomaalidu barwaaqooyinka iyo jacaylkana way ku muujin jireen oo si jacayl iyo maxabad kalgacal baa la isugu dhaantay jiray la isugu geebi jiray oo sida aroosyada kale iyo doogaado kale barwaaqada ay leedahay jirto marka taa ayadoo jirtay baa ilaa eega aroosyada iyo xafladaha aroosyada way sal gurtay eego ma badnaan colaado la isku gabiyo la isku halaago oo ma jirto ilaahay naga nabadgeliyo baa ku badnaa laakiin ay gadhicii barwaaqada iyo nabadgeliyo markay reero hada gobolka Shabeellaha kale iyo gobolka Afdheer iyo Beerleydo kale waa iska wali way iska tuntaan ciyaarada xilliyada barwaaqada sideedan aroos markuu dhacay magaalooyinka waaweyn magaalada waaweyn markuu aroos ka dhacayo raggaas oo dhan aragtay ay wada suulasha qaba saas heebay ku jabinay baash marka duntooday ku wada jirtaa raggu aan kula kaftamo cali dhaanto dhanka heesaha markii loo kaco waxaa jira fanaan walba inuu ku soo shacbaxo heesaha hirgalay oo waqtiga hore loo oran jiray iyo waliba waqtigan oo fanaan walba oo bulshada la dhex yimaado hees si weyn isaga loogu garto ka adiga cali dhaanto ahaan bal dhaantadii kugu horeysay ee aad ku soo gashay masrax horta dhaanto waxa ugu horeysay dhaanto aan sameeyay la oran jiray ما أعرف adigu laakiin hidda lagu abaabiyay baa la oran jiray laakiin waxa soo baxday oo heesi la soo baxday ahayd aan baxday dhaanta la yiraahdo codka wiilka xajaladiya ku duubta marka kolba dhinac bay ahayd bada jawli iyo tarbuusha ka taagan iyo hawlaha maartay ya markii dambana ya soo baxay marka dhaantadii saddex dhaanto oo saddex siiqadood oo dhaanta ah bay dhaantadii codka wiilka xajaladiya ku duubta oo waglada ku jirtay waglada marka codka wiilkaada waglada ku imaanaysa marka ereygaas waa ereyga aan baxay gabadh fanaanado kooxaanada ku jiray soo aamin la oran jiray bay la qaadi jirtay
shaqale sunaan oo ku naanaysi jiray waa salaamaya doon salaamaya kooxdeedii saaxiibaday marka codka wiilkooda wacjaaladiyaa ku duubta codka wiilko ayay gabadha oranaysaa mogta nagobey saddex weeyey gurguurtaane codka wiilko wacjaaladiyaa ku duubta codka nagobey biyo dooxa soo galay codka wiilkoyaa ku duubta codka agobey diinkuba wuu gurguurtaayey codka wiilko wacjaal muhiimadda marka codka wiilka cajalada ku duubtada baadiyaha markii la joogay cajaladan iyo codkaa la duubahayo waxuu ahaa wax aad iyo u weyn buu ahaa marka gabadhu waxay ku ammaanaysaa wiilka codka quruxda badan leh codkiisa iyo cajalad ku duubta caawo dhan ku celceshada marka dhageysta saasay horta allaanto waxaad la soo guurtay oo deegaamadaasi aad ka sheekeynaysay aad kala soo tagtay ciyaartii dhaantada waxaa timid waqooyiga Yurub oo dad kale iyo dhaqamo kale aad ugu timid sidee loo arkay dhaqanka ciyaarta dhaantada ee adigu aad hormuudka ka ahayd marka hadda kale halkan markaan imid adigu orod dheer dabadii markaan xaggan imid dadkii Swedishka inta badan magaalada markaan xafladaha iyo kooxda markay ila tumayeen markuu see kooxdan muusiga tunta cadaanka markaan u sheegayay waxaan uga cabirahay waxa ku leeyahay Allah kan waa reegay markaas aan reegayga meesha laga soo qaaday soo meesha annada maaha reegay baad ku aragteen war reegayga meesha laga keenay waa xagga anaga saasaan isku qabsanay marka ayagu waxa laga yaabaa inay dhaqanka Soomaaliga aysan u fahmin dhaqanka Soomaaliga uma yaqaanaan reegaan laakiin waa inaad u sheegto waan u sheegnaa reegayguba wuxuu ka yimid xagga anaga Bob Marley ninkii halka aragtay gaaray baashii Afrika xagga anaga ka soo qaaday adeero marka reegayga anaga laga soo gaaray ciyaaraha anaga ninka baadiyaha joogay ee geel la jooga markuu tuu caanaha ka dhargo uu rukaasayo dhaantada tumanayo waa reegay laakiin isagu reegayahan kuma yaqaan adduunka in reegay laga yiraahdo muusigiisa marka reegayga meesha laga soo gaaray waa nimankii marada intay geed ka saartaan halkan oo kale intay marada geed saartaan oo gabadh ka dhigtaan oo si fiican u dhaanta tuntaan dumaray shaqaan jiro geel iska raaci jiray marka waxaan leeyahay dadka Swedishka si fiican bay konsertiyada waa xafladaha waaweyn kamuunada iyo degmooyinka waaweyn baan soo wacda iyagan marka xafladaha inta badan u qabnaa kooxda cadaankana aad bay uga helaan hadda intay la shaqeynayaan muusigayga aad bay uga helaan runaantii say u tumayaan hadda wadiyaabaysaa dhaantooyinkaagii dambe ee hirgalay waxaa ka mid ahaa yarta dheer bal sidee ayay ku timid dhaantadaas waan ugu mahadcelinayaa ninkii midhaha sameeyay oo ahaa midhuhu isku haltuur bay ahaayeen laakiin waxa bilaabay oo sameeyay midhaha nin la yiraahdo Najiib saaxiibkay ahaa oo aad u cod macaana oo kooxdanadii wadanistan markii hore ku jiray markii dambe Liban la baxnay marka ninkaasaan uga mahadcelinayaa dhaantadaas arooskayga baan loogu talagalay oo safar dheer bay gashay oo marka garbaha la qabtay marka aad iyo aad dhaantadii waxaan baxday bay yarta dheer allaanta adigoo mahadsan bijij ka mid ah luuqdaasi sidii ay u dhacaysay bulshada haddii aad la wadaagto yarta dheereeyadaad dhunta maari lahayd sida dhiftaan caloosha ku dhigan lahaa sida dhoolka hilaaca ama dhaysta daruurta dhaxyareey dhaayahaygu way ku dhowranayaano kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda ma isqabsanaye yalaale kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda ma isqabsanaye yalaale afka dhuuxo shaliya dhaabanaadaan markan dhogowray buu dhigu boqoli taage aan ku sii socono kaydkaagii hirgalay ee dhaantooyinka dadka Soomaalidu aadka ay u xuseeyaan waxaa ka mid ahayd dhaanto kale oo iyadana aad kaga sheekeynaysay gobolada deegaankii markaasi aad joogtay juqraafi ahaan dadka aad u baraysay dhaantadaasi sababta ay ku timid iyo waliba hadii bulshada aad la wadaagto ereya ka mid ah dhaantadaas waa dhaanto waxay ahayd wadaniya marka waxaa jirtay mar deegaanka magacyadii gobolada la bedelay marka waxaan ugu dan lahaa inay dadku ku bartaan bulshadu magacyadan cusub ee maartay gobolada loo bixiyay loo kala bedelay marka habeen walba meel labaas badan iyo mahoodan u yeeshay heeladani habboonay mahooyada gacala ku tidhi ragga heela u tubine gobolka mugub gobolka city gobolka faafan baad ka soo dhaadhacdeen dhulka hooyaad dhuldhulanay ka soo dhaadhacdeen
lawnaalki lagu dhale dhayda lagu abiya dhaxyar dhuubo dhulka hooyaad dhululanayga soo dhaadhacdeen marka gobolladoo dhan bay wada tirinaysay marka gobolladoo dhan ayay wada tirinaysay marka sidaas ahayd marka gabdhahana waxaa lagu ammaanayay kooraska oo ah gobollada gabdhihiinaan ifahaya wada quruxda badan gobolladoo dhan baad ka soo wada dhaadhacnadeen ayay ahayd marka hoolka jijiga ee sayidkaana lagu tumayay dhaantada waradama garata adeer allaanta waxaa jirta waayadan dambe in aad u leexatay dhinaca wacyigelinta wadaniyadda waxaan isleeyahay maadaama qurba aad timid waxaa kugu soo baxday dareenkii wadaniyadda ay lahayd iyo weliba daljacaylkii bal sababta dhinaca wadaniyadda xoogga iminka aad u saarto iyo weliba dhaantooyinka cusub ee hadda aad soo wada ee la xiriira dhinaca wadaniyadda qaranka Soomaaliyeed wixii hadda maartay kala dhigaga aadana jeclaa baan fanaaniintan u sheegay aniguna aan sameeyay marka dhaantooyin aan sameeyay way jireen eegana dhaantaa sameeyay baa jirto oo qaranka iyo ciidanka iyo calanka aan u sameeyay marka wali ma aan soo maray laakiin waan jeclaa inaan hadda videogeeda soo dhameystiro oo aan soo daayo marka adan halka xasuusiyana caalayaho bidhaantaadu waano bilkhayr midkii loo bogo barakanoolaaw beesha Soomaaliyeed bahma kala lahee aan badhaadhne qabiilka laga bogsaado waa koorskeeda marka ayadoo dhammaystiran baan insha Allah soo dayn doonaa marka meeshii horeysay meeshii dambeysay baan kaaga soo qabtay marka erayga waa dareemi kartaa bahda Soomaaliyeed meel ma kala lahee aan badhaadhne qabiilka laga bogsaado inta kaliya ku filan qofka muwaadinka aad baad u mahadsantahay cali dhaanto hadda ka bacdina waxaan u malayn doonaa in lagu oran doono cali wadani dawadayaal barnaamijkaasi xiisaha badan leh intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaana idila socodsiinayay anigoo Ibraahim Maxamuud Jaamac intaynu kulmayno nabadgelyo